Maamulka Galmudug ayaa ku guuleystay in ciidamo la kala dhex dhigo laba maleeshiya beeleed oo maalmihii la soo dhaafay isku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan kuwa hoostaga degmada Balambal, gaar ahaan deegaanada Xanaanjiif, Bacda, Baraagta iyo sidoo kale duleedka deegaanka Oodaale. halkaasi oo intii dirirtu labada maleeshiya beeleed ku dhex maraysay ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 10 ruux, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoona dhaawacyada la kala gaarsiiyay degmooyinka Caabudwaaq iyo Gurceel ee isla gobolka Galgaduud. Mas'uuliyiinta halkaasi gaaray ayaa waxaa ka mid ah madax ka tirsan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud sida gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo saraakiil ka socota ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug. Ciidamada ayaana waxa ay durbadiiba kala qaadeen labadii maleeshiya beeleed ee maalmihii la soo dhaafay dirirtu deegaanadaasi aynu ka soo sheekaynay ay ku dhex maraysay. Culeysyada kale ee dagaalka halkaasi ka qarxay u geystay ayaa waxaa ka mid ah in dadka deegaanku ay ka barakacaan halkaasi maadaama dagaalka fool ah maalmihii la soo dhaafay halkaasi labada maleeshiya beeleed uu ku dhex marayay. Madaxda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ay xuseen in aan xilligan loo baahnayn dagaal sokeeye in deegaanada Galmudug uu ka dhaco, isla markaana sida ugu dhaqsaha badan loo joojinayo colaadda halkaasi ka taagan. Dhinaca kale, maamulka degmada Balambal ee isla gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta ku baxay halkaasi, waxa ayna baaq ku jeediyeen in si shuruud la'aan ah dagaalkaasi lagu joojiyo. Dagaalkan ayaa waxa uu ka mid yahay dagaal beeleedyo mararka qaar ka dhaca deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoona maamulka Galmudug uu waqti badan ku bixinayo sidii colaaddaasi loo soo afjari lahaa. Baaqyo kala duwan ayaa maalmihii la soo dhaafay intii dagaalku uu soconayay soo baxayay, kaas oo sheegaya in si shuruud la'aan ah dagaalka deegaanadaasi ka soo cusboonaaday labada dhinac ay u joojiyaan, iyadoona waxgaradka culimo-diinka, aqoon-yahanada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ay dalbanayeen in dagaalkaasi la joojiyo. Dagaalkan ayaa waxa uu qayb ka yahay aanooyin qabiil oo muddo dheerba ka jiray deegaanadaasi, kuwa oo in muddo ahba soo jiitamayay, dad fara badanina ay ku dhinteen intii ay soo taagnaayeen. Dadka qaar ayaa waxay inoo sheegeen in muddo ku dhow 100 sano deegaanadaasi dirirtu ay ka dhacaysay, balse dagaalka fool ah hadda ka hor uusan halkaasi ka dhicin.